boolis baa soo galay doonayay inay dadweynaha halkan martida loogu talagalay ay ka saaraan amarkay ku soo galeen muxuu yahay maadaama adigu shaqaalaha iyo sistamka maamusha askartan soo gashay golaha sida xeerhoosaadka golahu dhigayo waxaa amri kara oo u yeedhan kara guddoomiyaha golaha wakiilada guddoomiyaha golaha wakiiladuna uma yeedhin si sharci darraa bay ku soo galeen golaha arrintaana waxaan u gudbinaynaa maxaan ku dhahay wasaaradda arrimaha gudaha hadii la yidhahdo maxay doonayaan iyagu muwaadiniinta halkaa fadhida ee daawanaya xeerhoosaadka golahu ogol yahay inay maxaan ku dhahay dhegaystaan doodda ayay doonayaan inay ka saaraan sharciga goluhu ma ogol inay dadweynuhu halkan fadhiistaan sharciga goluhu wuu ogol yahay saxaafadda iyo dadweynuhu inay dhegaystaan haddaanu guddoomiyuhu amrin amarka ilaa hadda garan maayo cid bixisay aad baad mahadsantay sawirkan doonaya waa kaa golaya ka dambeeya okay xildhibaan ibraahim mahdi buuba waxa uu ka mid yahay xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland markii boolisku soo galay kaamboolka golaha wakiilada oo isku dayay in ay ka saaraan goobta martidii ku sugnayd fadhiga golaha wakiilada ee doonayay inay dhageystaan xeerhoosaadka golaha uu u ogolaa sida uu sheegay xogayaha guud ee sharciga ahaa ee mar kastana markuu mudanayaashu fadhiisanayaan goobtaasi fadhiista ayaa waxa uu ka biyadiiday in boolisku saaraan martida waa maxay sababtu xildhibaan saad la socotaan ciidanku sida arkayseen muwaadiniinta reer Soomaaliland oo sharci u leh xaqna u leh xeerarka waddankuna u jideeyeen hawlaha maalinlaha ah ee golaha wakiilada ka socda inay ka qayb qaataan oo ay dhageystaan ayaa isku dayeen inay xoog kaga saaraan taasoo sharci darro ah waad aragtaa maalmahan ugu dambaysay dhaqdhaqaaqa xukuumadda golaha ku haysay iyo faragelinta qaawan ee ay waday ayay ka mid tahay ciidamada horka leh ee tirada badan ee saaka golaha wakiilada marka xukuumadda laga yimaado golaha wakiilada guddoomiyaha golaha maamula waa golo madax bannaan oo sharciya marka xukuumadda laga yimaado yaa bixiyey amarka mas'uuliyadda soo gelidda madax bannaanidii golaha iyo dastuurka iyo xeerarku jideeyeen xukuumadda way ku tumatay waanay baabiisay imika laga bilaabo saacadda ilaa maalmihii ugu dambaysayna inqilaab bay golaha wakiilada ku haysaa xukuumaddu oo ay faraha kula jirtaa habeen iyo maalin xildhibaan adigoo mahadsan inqilaabkaasi kama hayna xukuumadda laakiin qodobkan doonayna ku weydiiyo waxa weeyaan annaga ku sheegayno habeen iyo maalin xildhibaano tiro badan baa guriga madaxweyne ku-xigeenka ku shira oo xalay ugu dambaysay lagu shirinayo oo loo guddoominayay go'aamo la doonayo khayru sharciyo golaha laga jideeyo taasi maana inqilaab ahayn ay xukuumaddu iyo sharcigii oo ay laabtay iyo dastuurkii ku tumatay iyo xerjibin ay samaysay xildhibaan adoo mahadsan waxaanu ogeyn golaha wakiilada isku duuban xeerarkoodii ansixiyey xeerhoosaadkii meelmariyey sharciyadoodii nidaamkoogu ay sax ahayd maxaa isbedelay imika xukuumadda isbedelay xukuumaddu waxay u adeegsatay macno kasta oo ay xildhibaanada kaga majar habaabinayso shaqadoodii sax ahaa qarankan u hayeen waxay u adeegsanaysaa hantidii qaranka waxay u adeegsanaysaa habbeeleed waxay u adeegsanaysaa nooc maxaad ku cadaynaynaa shirarka habeen iyo maalinlaha ah ee ka dhex socda guryaha madaxtooyada iyo guriga madaxweyne ku-xigeenka cid kasta way shirtaa xildhibaanaduba way shiraan shiri karaan laakiin waxa weeyaan way ka baxsantahay anshaxa iyo mudanaha karaamadiisa in meel wax loogu soo yeedhiyo oo habeen iyo maalin guriga madaxweyne ku-xigeenka iyo 7 wasiir ay amarra soo furayaan golahan ka dhan sharciyada dalkana ka hor imanaya aad baad mahadsantahay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland mudane Baasha Maxamed Faarax ayaa maanta waxa uu fadhigani hor fadhiistay oo uu ka mid yahay xildhibaanada golaha dhexdooda isagoo aan fadhiyin goobtii loogu talagalay gudoomiyaha ayaan hal su'aal weydiiyey gudoomiye hal su'aal oo kaliya iga jawaab maxaad halkan u fadhidaa maanta waxaan halkan u fadhiyaa golahan ka soo qayb galay waa golahaygii xildhibaanadaydii baan dhex fadhiya wax dhibaato jira ma jirto sharciyada gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka ee golaha wakiilada ma mudna inaad mudanayaasha dhex fadhiisato waa maxay sababta go'aan golaha halkan laygu fadhiisiyey kursiga aan lahaa shirgudoon buu ahaa dabeedna halkaan fadhiistay halkaanna fadhiyaya intaan xuquuqdaydii la soo noqonayo ma og tahay mooshin xilka laydinkaga tuuraya adiga ku-xigeenkaaga waa soo dhowaynayaa mooshinka xilka nalakaga qaadayo horaan naloo ka qaaday xil haddana aanu haynaaba ma jiro xilli qaadista horaa laydinku sameeyey horaa xilli qaadista laydinku sameeyey miya
awoodaha iyagii baa la qaado meesha kuraasta la dhigay waad arkaysaa marka wax dhibaato oo ma jiraan taasi miyaanay ku iman cod aqlabiyada oo mudanayaasha golaha wakiilada dhex fadhida ay keeneen haddana golaha waxay fadhiisiyey goloweynaha ay fadhiisooyeen halka fadhi aad baad mahadsantay بسم الله الرحمن الرحيم مدنياشان فدhiistaan fadhigaynu furanaynaa waxaynu ku furan doonaa aayado qur-aan kariim ah xildhibaan obsiye waa inoo akhri doona ilaahay inagu anfaco aayadaha qur-aanka kariimka ah waxay noo socday doodii xeerka baanka haddana waxaa lee dhiibay 2 mooshin ka saddexaad buu soo gaaray sheegi doonaa mooshinka koowaad waxa weeye soo jeedin kal fadhi aan caadi ahayn horta weli fadhiga uu socdaayo mu dhammaanin laakiin mudanayaal baa soo jeediyey waxaa akhriyayaa mudanayaasha soo jeediyey mudane maxamed jaamac cabdi mudane cali obsiye diiriye mudane xasan cawaale caynaan mudane ibraahim caraale cabdi mudane maxamed jaamac xaaji cilmi mudane cali maxamed aadan mudane cabdikariim cali shabeel mudane aadan xaaji diiriye dirir mudane axmed barkhad obsiye mudane salebaan cawad cali mudane axmed ducaale bulaale mudane maxamed bukaal butaale mudane cabdiraxmaan maxamed talyanle mudane siciid cartan cismaan mudane cabdilqaadir jaamac xaamid mudane siciid maxamed cilmi mudane abubakar cabdiraxmaan good mudane faarax farxaan maxamed cali mudane maxamed axmed maxamed mudane cabdi axmed kijaanle mudane cabdiraxmaan yuusuf cartan mudane axmed maxamed diiriye mudane cali maxamed xasan
مدن عبد الرحمن عثمان عالم مدن محمد شامع ورفاه مدن محمد برخد بن مدن إبراهيم أحمد ريجل مدن حسن موسى وفني مدن محمد عثمان بلغاص مدن محمد شامع علي يولد مدن عبد الرحمن موسى مدن محمد عثمان هادم محمد عبارة مضياش هو يشوفته بوشيك اللباد وكوسا بسيء سوتشيري وحكي بدل كوسا بسن قضب كطرنات حمنتي سلبات حمنتي أفراد قضب كشجلات طنات حمنتي سلبات حرف كسي حراسات الجماعة وكيلة مضياش سوتشيري بوشيكا علي محمد آدم أحمد محمد ديري مضان حسن عوالة عينان عبد الرحمن موسى شامع عبد الله حسين عقل مضان السعيد محمد علمي مضان سليمان عوض علي مضان فرحان محمد علي مضان المهدي يوسف عضرة مضان محمد باروس شدة مضان عبد الرحمن محمد خليلة مضان محمد شامع علمي مضان عبد الكريم وعلي الشباب عمر أحمد سليمان مضان علي حسن محمد مضان محمد شامع عبدي مضان أبو بكر عبد الرحمن قوط مضان محمد مرخد بيجيني مضان محمد أحمد بسيي مضان محمد عمر تشيف مضان محمد شامع علي مضان حمزة محمد قادوي مضان إبراهيم عرالة عبدي مضان عبد العزيز إسماعيل دعالي مضان آدم حاج الديرية دير مضان أحمد مهدي عبد الله محمد مضان حرير سعيد بلالة مضان عبد محمد شابع مضان حسن موسى هفني مضان أحمد عبد النور مضان الدكتور علي يوسف مضان أحمد ياسين شيخ علي أيانله مضان محمد أحمد محمود دكول مسحنا مقعاسي لما سحيحين مقعا لما سحيحين مسحنا مقعاسي سعيد عرتن عثمان أحمد دعالة بولالة إبراهيم أحمد ريجل
mooshinka saddexaad soo jeedi wax ka bedel ku saabsan qodobka 10aad xubintiisa 10aad oo ay soo seexday xubno ka mid ah guddiga joogtada ah soo jeedintaasi waa invalid shiraan gudoomiyuhu qabanna guddigu ma qaban karto labada soo jibooda kale labada soo jibooda sida uu qorayo qodobka 42aad faqradiisa afraad soo jeedimaha waxa loo gudbiyaa sharciga loo gudbinaynaa fadhiguna wuu xidhan yahay fadhigu wuu xidhan yahay fadhigu wuu xidhan yahay fadhigu wuu xidhan yahay mudanayaal fadhigu wuu xidhan yahay fadhigu wuu xidhan yahay fadhiga waan xidhay fadhigu wuu xidhan yahay wuu xidhan yahay fadhigu mudanayaasha waxaan ugu celinayaa fadhigu wuu xidhan yahay mooshinkana waxaa loo gudbinayaa la taliyaha sharciga
gudoomiye shirka waad xidhay laakiin muxuu shirku u sii socdaa ilaa hadda shirku wuu xidhan yahay wuu xidhay shirku mudanayaashu way fadhiyaan waxay ka tagi laayihiin kalfadhiga maanta kalfadhiga waxaan u malaynayaa dee kalfadhiga anaa xidhi ma bilaabaa waay walaal de waan idin weydiinayaa waan ixtiraamayaa walaal walaalo haye xildhibaan walaalo hoos yardhiga kuwana si wejigiisa loo arkay isaga laftiisa gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi kalfadhigii maanta ee mudanayaasha golaha wakiilada waad xidhay laba xeerar baa waxa la keenay laba mooshin oo kala duwan oo mid lagu dalbanayo in lagaga bedelo xeroosaadka wax midna lagu dalbanayo in fadhiga golaha lagu sii kordhiyo inkastoo aad mooshinada u dirtay sharciyaqaanka golaha wakiilada mudanayaashu markaad fadhiga xidhay way ka ciwaayeen sababtii uu ka ciwaayeen waa maxay mudanayaasha anigu ixtiraam badan u haya maanta dee goluhu shaqa maalmeedkiisa caadiga ah buu lahaa mooshinadana waxaanu marinay dariiqii saxa ahaa markii mooshin la keeno mudanayaasha soo saxay waa in gudoomiyuhu akhriyo dabeetana loo gudbiyo mooshinada la taliyaha sharciga marka la taliyaha sharciga taladiisa baa la sugayaa procedure caadi baarlamaanku leeyahay baanu maray waana procedure-ka saxa ah mudanayaashaasi saxaafaddu malayada bay la xal qorqoraysay oo waxay ku shirayeen guriga madaxweyne ku-xigeenka xukuumadda madaxweyne ku-xigeenkana shirka gudoominayay wasiiro tiradoodu badan yihiin waa joogeen waxay ila tahay qorshii lagaga soo qaatay oo ah faragelin qaawan xukuumaddu intaasoo mudane iska din iyo intaasoo wasiir ayaa mooshinada soo keenay waxaana go'aanka ka soo qaateen marka waxaan u malaynaya talada ay ku fadhiyeen golaha waxay taladii halka ka soo qaateen gudoomiye Cabdiraxmaan laba su'aalood baan ku weydiin lahaa gudoomiyihii golaha wakiilada tahay maanta ummadda waxaad u cadaysay oo aad golahiina ka dhex cadaysay in kalfadhigii 4 fasaxiisii la galay waxa ka muuqday gudoomiye maanta golaha abaabul ballaaran oo xildhibaanadu wixii ay shalay ansixiyeen ayaad moodaysay in haddana caqligoodu laga soo bedelay waxaana la sheegayaa in xukuumaddu ay soo aabushay oo dhaqaale la soo siiyey taasi waa qodob talabaad waxa ka muuqata gudoomiye xukuumaddii madaxweynuhu shalay si wanaagsan buu hadlay wuxuu golaha wakiiladu way u madax bannaan yihiin hawlahooda waxaad samoodaa inaan wasiiradiisii iyo xubnihii ka hooseeyey iyo isagu aanay wada socon oo marka la eego galinkii dambe shalay waxa lagu shirayay sidaad sheegtay madaxweyne ku-xigeenka arrimahaasi maanay isburinayn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilaanyo runtii waxaa isleeyahay hadalka intii ugu habbooneed uu yidhi shalayto in labada gole kala madax bannaan yihiin mid walba shaqadiisa wato xukuumadda dee wasiiradiisa inay si qaawan ugu jiraan waa arrin cad mooshinada hadda la keenay qaar ka mid ah wasiiraha jeebabka ku sitay oo suuqa kaga soo saxeexay xildhibaanada taariikhda waa markii ugu horeysay intii aan baarlamaanka joogay nin wasiiri inta mooshin qaato ama xafiiskiisa la fadhiisto ama maqaaxi la fadhiisto oo kolba xildhibaan u yeedho dabeedna ka saxo xildhibaanada dee mooshinka xaq u leh inay keenaan halkan bay ku seexi karaan xaq bay u leeyihiin intii doonaan tirada mooshinada keeni karaan marka kulliba waxaan mar labaad soo jeedinayaa xukuumaddu inay ka waantowdo faragelinta golaha wakiilada shaqa ka dhaxaysa shaqadana ay si wanaagsan qaranka ugu wada qabtaan tay leeyihiinna qabsadaan ta baarlamaanku leeyihiin u daayaan 4 sanadood waa markii ugu horeysay ee xukuumadda aad khilaaf caynkani golaha wakiilada ka dhasho tan iyo intii la doortay xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo su'aasheedu waxay tahay gudoomiye maxaa khilaafkan halku salka ku haya khilaafkani waxay la tahay sababta xukuumadda ale waxa ka warqabteen kalfadhigii hore markaanu xidhaynay waxaanu sameynay isku shaandhayn anoo maqan xukuumaddu waxay isku shaandhayntii goluhu sameeyey hala tirtiro khilaafkuna halkaasuu ka bilaabmay kan maanta socda bartaasuu ka bilaabmay xukuumaddana sabab goluhu wuxuu caadiyan sida sharciga ku qoran 4 wiig baa ugu yar 8 wiigna wuu qaadan karaa mooshin hadii lagu ridayaa ma jiraayo la doonayo in 42 laga dhigo xidka aqlabiyadda ee gudoonka adigu aad ku dhacayso oo xeerkan qodobkan 10aad imka dalbanayana mooshinkan moogtay mooshinkaasi waa kii aan akhriyay waanu jiraa la taliyaha loo gudbiyay طريقة شرعية أنا مريا قدوميها ولا هدي كلا هدي أي فريستان هدي أي فريستان مرياشين كل حيس كده يعني فريستان أو أي شيء قدون نقدان محاحة ده كاسوا انقلاب
وانقلاب عن شرعي هاي كاس dhexdhexaadinta waxaan maqlayay xukuumadda tiri fara kala baxa ana dhexdhexaadinida arrintii goluhu meesha way ka baxday oo meesha waxaa maraya loolan dhex maraya xisbiga mucaaradka ee wadani iyo xisbiga mucaafidka ee kulmiye axsaab ku tartamaya halkan ma jiraan gudoomiye shan iyo mudanayaasha golaha wakiilada cod aqlabiyadii ku ansixiyeen xeeroosaadka in 55 mudanayaasha gudoonka ku dhacaan oo adoo ku dhacdana hore ansixiyeen aqlabiyada golahana adiga haystay muddooyinkii ugu dambeeyay oo dhan goluhu iskugu dubaracsnaa dhinaca shir gudoonka waxaan isbedelay inta leeg xildhibaanadii dhinaca kale maanta uga soo wada jeedaanay saddexda mooshin u keeneen maxaa tahay baa la oran karaa waxay tahay xukuumadda awoodii iyo dhaqaalihii moodaa lagu isticmaalay qaranku lahaa waana faragelin waana faragelinta aan sheegay weeyii adigu ma jiraan wax xisbigaaga aad u isticmaashay oo awoodda golaha wakiilada oo waxyaabaha ay ku cabanayaan kamid ah ma jirto taas anigu baaq baan shacbiga Soomaaliyeed u jeedinaya waa arkaysaan xukuumaddii aan ka tirsanaa ee kulmiye ee berigii hore kadeedneed markaan mucaarid ka ahayn ee sal calee ka caban jirtay maxay ahayd caburinta saxaafadda ka caban jirtay ee ka caban jirtay maxay ahayd in loo diido gobolada ka caban jirtay ee ka caban jirtay in faragelinta golaha wakiilada lagu hayo ka caban jirtay intiiba xukuumaddayadii kulmiye maanta way ku dhaqaaqday waxaynu maraynaa shacbiyow halkii maalintii riyaalena laga xilan jiray golaha waxaan leeyahay waxa kaliya idin beed qaba waa golaha shacbiyadii waa la joojiyay waa arkaysaan xisbiga u cid waa ogeydeen gabiley baa loo diiday haddana shiikh baa loogu yimid burcamo tegi kartaan baa la yidhi waa ogeydeentaa waa ogeydeen saxaafadda waxa lagu hayo ilaa maanka xeerkeedii 2002 aanu ansixinay ilaa maanta in la doonayo in la tirtiro oo xeer cusub oo caburinaya saxaafadda oo jiritaankeena tirtiraya in la wadana waa ogtiin waxa kaliya harsana waxa golaha wakiiladu baha goluhu markii hore raggu aad iyo aad buu wada socday annaga majority ahayn ragga iyaga maxay ahaydeen kulmiye aan ahayn anu kayn kulmiye waan idin sheegaya ragga waxaan wadaa iminka kulmiye ma yahayn waxaan idin sheegayaa xukuumaddayadii taageerayaasheedii way ka tagtay wakiiladeedii way ka tagtay wasiir dadkeedii guud ah xisbigeedii way ka tagtay oo maanta waa ogtihiin xisbigii kulmiye iyo xukuumaddii halka kala marayaan waa ogtihiin gudoomiyihii kulmiye ee xisbiga kulmiye maanta waa fadhiid tala allaaliye tala la weydiiyaa ma jirto adigu wali kulmiye ma kamid baad adigu waan idin sheegaya waxaana la qabaa iminka hawshan miyaa ku aragteen inuu bixo ku jira wallaahi bilaahi tallaahi warbixinta halkan la geeyay waxa weeye muusa ka dambeeya idina waxay leediin iminka gudoomiyaha ka dambeeya horta nimiya waxaan idin sheegayaa anigu markaa midun baan usoo jeedinayaa saxbigii xukuumaddan waxay tidhaahdaa daaraanu dhisnay laamiyaanu dhisnay waxaa ogeydeen 88kii boqolkii sannadood marka laga bilaabo 1940kii ilaa iyo 1988kii wixii uu dhisanayay reer Burco reer Hargeysa reer Berbera inaynu halka kaga dhaqaaqnay madaar bayna anfacaysa xukuumaddan barnaamijkeedu waxa in dad la dhisaabay in ummadda la dhisaabay in dastuurka la habeeyaabay inay kala dambeyn timaadaabay inaynu u guurno nidaam dimuqraasiya wixii aynu eednay ee afweynaynagu tirtiray inaynu ka guurno oo nidaam casri ah oo caalamka la socda oo mustaqbalkiini idinku amuraada sida uga aragtaan baahay wala bedelo barnaamijkaygu waa bedelay anigu waxaan maanta shacbiga u jeedinayaa shacbiyow halkii baynu maraynaa annagu golahan ciidankiisu iyo tiknikadiisu waa shacbiga haddii shacbigu na raaco golahaas waa guulaysanaya hadduu shacbigu aamuso oo qabyaalad kala noqdo ilmahayga iyo ka qoryaalo yaalla iyo ka saylac yaalla iyo inanka yara ku dhashay boorame iyo inanka ku dhashay baran isku xuquuq weeye ninna kulli salmaayo maxaa idin salla caleh ii kaada horta waalba horta noo kaadiniyo waalna horta ma ka baxa shuruuc looma gudbin baarlamaankii wuxuu odhan jiray faragelin baa lagu hayaa hantidii ummadda loo adeegsanayay maantana waxaad muuqataa in dhaqaale loo adeegsanayo arrintaa maxaad ka leedahay waan taan sheego hadalkaygu tooqatuhiisu ku fadhiyaa waa taa weeye middan laakiinse shacbiga u sheegaya waxa weeye waa ninka xukuumadda dan ku qabow ilmahaaga iyo ilmahaygu waa isku mid ninka xukuumadda dan ku qabow haddaad maalin dagaal ka fikirtid oo aynu 50 sannadood soo socda ka fikiri weyno ubadkeenu waa bila dhaxal bay noqonaya aad baad mahadsantahay waxaan leeyahay shacbiga na taageera haddii dagaalku sii kordhana sidii daahir yaalo waxaan leena soo baxa
mudaharaad sameeya ha la kaco ha la fadhiisto dukaamada ha la xidho sidaasaan leeyahay assalaamu calaykum sababta golaha looga xildhibaan maxamed saalax golaha guddoomiyuhu fasaxay maxaa golaha looga bixi laayahay sababta golaha looga bixi laayay waxa weeye waxaad moodaa in xukuumaddii ay halka timi waxa golihii xildhibaanadii xukuumadda laga hagayaa golaha gudihiisa waxaa lagu soo ballamiyey in marka golaha la xidho aan la bixin la inqilaabo guddoomiye ciro guddoomiyihii iscasilay ee baasha la saaro dabeedna halkaa ay isku doortaan xeer hoosaadkii la furo gudoomiyaha iscasilay ma ogin annagu ma umad ogtiin iscasilay dee guddoomiyuhu mar haddaanu kursigii loogu talagalay aanu fadhiisanay xeer hoosaadka ugu qoraa nidaam baa jira xeer hoosaadkan loogu qoran madasha golaha sida loo fadhiisanayo guddoomiyuhu meel buu leeyahay guddoomiye ku-xigeennadu meelay leeyihiin madaxweynuhu meel buu leeyahay hadday meeshoodii diideen waxay u diideen noo sababay xildhibaan sharci yaqaanna waa ti weliba waxay sababta ay u diideen iyagaa la weyddiin doonaa marka hore anigu waxaan ka hadlayaa xeer hoosaadka iyo sharciyaddiisa xeer hoosaadku wuxuu dhigayaa in mudane kasta meeshii loogu talagalay uu fadhiisto ninka iska casila halkii uu fadhiistay macnaheedu uu iscasila weeye qaabkaas ayay ku timi waxay rabaan markaan annagu meesha ka baxno idinku waxaan doonayna taa ay caddayso ummadda u caddayso annagoo golahii wakiilada ah oo qayba annagoo golahii wakiilada ah oo ku taagan sharciyaddii golaha iyo xeer hoosaadkii oo xildhibaan mooshinaa socday codod baa la tirinayey xildhibaannaa soo saxeexay qaar xilka lagaga qaadaya qaar lagu dalbanaya wax kabadda lagu sameeyo mooshinnadaa kumaa jirin marka adu maxaad aaminsanay anigu waxaan aaminsanahay mooshinnadaa saaxiibaday keeneen inay mudanayaasha xildhibaanada dhiggayga ay keeneen ee la akhriyey golaha laga akhriyey in marankiisii sharci la mariyo hadha waan ka doodayaa waan ka codaynaya ama waan u codaynayaa wax dhibma jiraan laakiin waxay tahay in mooshinnada la keenay 8 sannadood baanu soo joognay mooshin kasta oo la keeno la taliyaha sharciga ah iyo guddiga joogtada ah baa loo gudbin jiray marka guddiga joogtada ah ay leedahay xeer hoosaadka wax ka beddelkiisa marinnadii un baa la mariyey wax dhiba hoo loo keenay oo la geysiyey midna ma jiro goluhu muxuu yahay fafaallahaaga goluhu muxuu ku dambayn doonaa haddii aad san u sii wada dhaqantaan runtii wallaahi waxaan u arkayaa arrin aad iyo aad u xun in golihii maanta noocaas uu noqdo oo xisbulxaakimka iyo qoladii xukuumadda ka socotay ay iyagii ugu horreeyeen xukuumaddii laakiin waxaa ku jira adu xisbigii udubbaad ka soo baxday mudanayaal udub ka midaa ku jira mudanayaal ucud ka midaa ku jira mudanayaal kale oo aan cidnaba ka mid ahayn baa ku jira maadaamay badan yihiin marka laga yimaado xukuumadda miyaanay ahayn mabdigii golahu inuu aqlabiyad yahay maya maaha runtii waxa weeye mudanayaasha imminka golaha fadhiya ee doonaya inay inqilaabka sameeyaan waa mudanayaal ay soo samaysay xukuumaddu shaki kuma jira taa cidna shaki maxaad ku caddaynaysaa waxaan ku caddaynayaa dee xalow dhag xukuma waxaa la fadhiyey madaxtooyada laakiin xisbi kastaa meel buu fadhiistaa xildhibaano kastaa meel bay fadhiistaan maxaa ku jaban hadday meel fadhiyeen adiga laftaada imminka ladeed rag badan bay ahaayeen oo kala duwan maxaa keenay in intaasoo xildhibaan inta la ururiyo madaxtooyada lagu shiriyo 3 mooshinna loo soo dhiibo aad baad mahadsantahay waxaad ka maxamed oo diyaar walaal aynu isku yar samir dhoo caadi waxaad ka mid ahayd xildhibaanada golaha wakiilada ee xildhibaanada golaha wakiilada ee mooshinadii maanta golaha ka socday intoodaba ku saxeexan baad ka mid ahayd xildhibaan sharci yaqaanana waa tahay maxay xaaladani waa maxay bismillahi raxmaan raxiim horta marka hore waxaan si guud ahaana uga hadlayaa xaaladda taagan iyo wixii golaha saa ka dhacay golahan waxaannu keennay 2 mooshin oo sharci ah mid wuxuu ahaa muddadii golaha kalfadhigan oo ku ekayd 11 bishan in la kordhiyo guddoomiyaha waanuu dhiibnay wuu akhriyey wax jawaabana nagama siin waxay ahayd inuu yidhaahdo golaha u jeediyo oo yidhaahdo intii ogol iyo intii diidan sidii sharciga ahayd uu ugu hordhigo waa arrin dastuuriya waa arrin xeer hoosaadka iyaga ku xusan waxay ahayd inuu sidaa yeelo oo golaha uu yidhaahdo yaa diidan yaa ogol qodobkee dhigaya 22 xeer hoosaadka iyaga saasuu tilmaamaya xildhibaano golaha ka tirsan oo tiradoodu 27 tahay baa soo jeedinaya dastuurkaa tilmaamaya taasi sidaasay tahay isagoo oo gadaashiisa intuu dhigo ay akhriyeen waan diiday iyo waan yeelay midna muu odhan wuu dhigay waa kow arrinta kale mooshinka la xidhiidha wax ka beddelka xeer hoosaadka halkan waxaan kuugu hayaad gacanta ku haysaa qodobka 3aad farqadda 5aad oo tilmaamaysa goloweynuhu wuxuu xaq u leeyahay wax ka beddelka iyo curinta iyo ansixinta xeer hoosaadka kuma taallo waan ku akhriyayaa kuma taallo haba yaraato waxa loo gudbinayaa guddida joogtada ah loo gudbinayaa kuma taallo waxay ahayd maalintii hore xeer hoosaadkan markuu ansixinayey
uma odhan oo kuma darin guddida joogtada baan u gudbinayaa ad hoc committee baan u gudbinayaa waa la soo akhriyayaa midna mu odhan cod buu geliyey maantana markuu arkay in awooddii golahu sidaa u hor fadhido oo codsanayso wax ka beddel ku saabsan isaga aqlabiyadda lagu ansixiyo ama lagu rido ayuu ka kacay arrinta kale loo dhiibay waxay ahayd guddida joogtada ee laftigeedii go'aankoodii oo ah go'aanka goloweynaha ayaannu qabnaa ayaa loo dhiibay xaggay ku qoran tahay oo ugu taallaa waxa weeyaan anaga golahoo dhan jeebadda ku haysanaya oo waa wixii aan doono oo guddidana ma shiri kartaba xogayaha guddidaa shirinaya wax mashaakila ma laha aqlabiyadda golaha waa sidaa waxaannu haddana u fadhinaa inuu ama soo noqdo shirka hoggaamiya ma xidhi karo aqlabiyadda golahu way fadhidaa 52 nin baa fadhiya ma kici karo ma odhan karayo waan xidhay waxa weeyaan sababtu qodob sharciyo aanu ku odhan karin waan xidhay maad haysaa aqlabiyadda golaha laakiin xeeroosaadka may ku qorantay golaha mudane xildhibaan maxamed jaamac su'aashaydu waxay tahay guddoomiyuhu waxa uu sheegay markii aad leedahay ku eedaynaysa in mooshinka meel iska dhigay oo aanu ka hadal inaanu kalfadhiga golahu wakhtigiisii dhammaanba maantana bishu aanay ahayn wakhtigii in la gaadho 9 bishu tahay marka guddoomiyuhu ma laga yaabaa inuu u dhigay maalmaha ugu dambeeya ee golahu xidhmi doono beriyi sax damba business iyo dhaqan iyo caadaannu leenahay iyadoo 10 cisho ka hadhay ama 7 ka hadhay waxaa muddadan laga bilaabayaa aanu kordhinayna maalinta kalfadhigu dhammaado ayaa caadi oo laga bilaabayaa waxa weeyaan maalinta uu xeer ku-xilka madaxweynuhu ku egyahay dee lama kordhiyo muddada waxa la kordhiyo isla maalintaa lama kordhiyo waxa la kordhiyaa maalmaha ka horreeya muddo ka hor sidaa darteed caaday noo ahayd sharci bay tahay waxa weeyaan muddadii hore oo aan dhammaan muddadii hore hadday dhammaato maxaa la isweydiinayaa koliba wuu xidhmay sidaa darteed taas waa tahay inta badan waxaa laydinku eedaynayaa inaad wasiirka madaxtooyadu ilaa xalay ilaa madaxweyne ku-xigeenku uu kulamo goonigoonina lahaa si aad xeerkaasi u beddeshaan aanay ahayn go'aan idinkii dhiga soo kacay arrimahaasi la leeyahay lacag baa la siiyey xildhibaanada maxaad kaga jawaabi lahayd walaal horta jaraa'id kee tahay adigu waa heen waayo ra'yiga waa heen waxay tahay ra'yigaa waa heen unbaa qabtaa annagu waxaannu nahay golihii wakiilada rayadaa qabtaa waa ra'yigeeda imika dee cid kale ima weydiin waaye waxaannu leenahay annagu waxaannu nahay halkan waxaa fadhiya golihii wakiilada haba yaraatee waxa meesha fadhiya waa golihii wakiilada waxa soo seexay waa golihii wakiilada xisbiga kulmiyaannu nahay xisbiga kulmiye xukuumadduna waa kulmiye annagoo xisbiga kulmiye ah golaha dhexe ku jira wasiirkaad sheegaysaa anna golaha dhexaan ku jira waannu isugu iman karnaa tala xisbi baannu ku fadhinaa tala xisbi weeyaan wax noo diidayaan aad baad mahadsantahay guddoomiyaha golaha wakiiladu eedaymuu soo jeedinaya waxaa ka mid ah in xildhibaanadu shireen guriga madaxweyne ku-xigeen ku shireen lacag qaateen xukuumaddii faraha kula jirto adiga iyo shirgudoonkii aad kala tagteen maadaama shirgudoonka ahayd sidaad u aragtay guddoomiyuhu ma odhan lacag baa la siiyey xildhibaanadiisa lacag buu siiyey hadduu yidhi isagaa caddayn doona caddayn baa laga rabaa guddoomiyaha meesha lacagta ay ku bixisay marka waxaana guddoomiyuhu sheegay anigu waxba kama ogi meel lagu shiraya ma ogi xildhibaanadu markii horena iyagaa ansixiyey haddana iyagaa ansixiyey xeeruu jeexay uunbaa lagu wada soconayaa waaba intaan awood xukuumadeed baa loo adeegsanayaa fadhiga golaha wakiilada miyay jirtaa maayo looma adeegso adiga arkay in ay meesha farfadhiyaan waa tishanana gudoomiye sidan oo kale golaha kamay dhicin inta gudoomiyuhu fadhiga xidhay in mudanayaashu sii fadhiyaan aadna shir gudoonkii golaha wakiilada ka mid tahay adoo xidhay mudanayaashii weliba dhex fadhiya maxay xaaladani noqonaysaa waxba noqon mayso iska dhammaanaysaa nabad bay ku dhammaanaysaa goluhu waa yaqaan siduu gudoomiyuhu waa soo noqonaya golahana wax dhibaatayii ma jiraan annaguna golaha waa fadhiyanaa intii aan ma la odhan karaa khilaafka baashe oo guddoomiye ku-xigeenkii iyo cali yuusuf oo kii labaada ka dhashay iyo guddoomiyaha ayaa sababay inuu golaha xaraaradiisu halkan gaadho may waa xildhibaanada weeye labada iyadoo xildhibaanadana xukuma xildhibaanada marna na kiciya marna na fadhiisiya marka markuu aqlabiyadda xildhibaanadu cidda ay la jiraan ayuunbaa golaha hoggaamisa adigu ma iscasishay ma isma casilin sorigaa maxaad hadda halkan u fadhidaa meeshir guddoonkii baan ka hadlayaa kursi baad lahayd maad iska cadshay kursigii maxaad halkan u fadhidaa shirguddoonka waad ogeyd maalintii la baabiyey xeerasaadka la yidhi shirguddoon ma jira guddoomiyaa jira marka wax kaloo dhibaatay ma jiraan cod galuu ku yimid laakiin xeerasaadkii gol haddana cod golaan suganaa cod galo marka lagu ansixiyo halkaagii ku noqonaysaa cod galo lagu saxiyo halkay ku noqonaysaa
fadhigii maanta ee mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ee uu gudoominayay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu fadhiga markii uu kooramkiisu buuxsamay la keenay fadhiga golaha mooshinno kala duwan oo la xidhiidha in xeeroosaadka mudanayaasha golaha wakiilada wax ka bedel lagu sameeyo qodobka 10aadkaasi oo la isku dayay in mudanayaasha mooshinka watay lagu soo koobo in 42 cod uu ku waayi karo xil gudashada gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland iyo mooshin kale oo isaguna la xidhiidhay fadhiga golaha wakiilada Soomaaliland oo ku eeg 11 bisha oo isagana ay mudanayaashu soo jeediyeen in isagana fadhigaasi lagu daro muddo 3 toddobaad ah haddaba markii gudoomiyuhu labadaasi mooshin akhriyay ee ay heleen aqlabiyadda xildhibaanada soo jeediyay mooshinadaasi iyo saxiixoodii ayaa gudoomiyuhu waxa uu sheegay in aanay jirin in haatan fadhiga golahu uu dhammaaday ee loo doonayo inuu fadhiga golaha wakiiladu uu sii socdo taasina uu ka jawaabi doono mooshinka ay xildhibaanada golaha wakiiladu ay ku doonayeen in fadhiga wakhtigiisa la sii kordhiyo oo kal fadhi aan caadi ahayn ay goluhu galaan gudoomiyuhu waxa kale oo uu kaga jawaabay qodobkaasi la xidhiidha in qodobka 42 laga dhigo awoodiisa xilka uu ku waayi karo oo odhanayay in ay soo gudbiyeen mooshinkaasina xildhibaano kale in qodobkaasina uu u gudbinayo la taliyaha sharciga ee golaha wakiilada Soomaaliland haddaba taasi ayaa waxa ay keentay khilaafka aad arkaysaan ee mudanayaasha golaha wakiilada aqlabiyadoodu ay u fadhiyaan kuraasta isla markaasina ay u ka kicilayihiin fadhiga oo maanta gudoomiyaha golaha wakiiladu uu sheegay inuu fadhigu xidhan yahay waana markii ugu horeysay ee muddo 4 sanadood ah oo ay jirtay xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo golaha wakiilada uu dhex maro khilaafaadka inta leeg oo kale waxaa fadhiga maanta isaguna qayb ka ahaa shirgudoonka golaha wakiilada gudoomiye ku-xigeenka koobaad iyo labaad oo iyaguna ka mid ahaa kuraasta mudanayaasha caadiga ah ee golaha wakiilada oo aan fadhiyin goobtii loogu talagalay kalfadhiga ayaa iyaguna waxa uu helinayay in askar ka mid ah ciidamada booliska Soomaaliland ay soo galeen fadhiga oo iyaguna isku dayeen inay marti sharaftii ka qayb qaadanaysay fadhiga ee xoroosaadku sida sharciga ugu ogolaanayay inay ka baxaan taasi oo mudanayaasha golaha wakiilada iyo ciidamada booliska uu khilaaf u dhex maray isla golaha wakiilada dhexdiisa haddaba daawadayaal sida aad wada arkaysaan fadhigan maanta ayaa waxa uu yahay mid xaaladiisu ay sii cakilmayso waxaana laga yaabaa khilaafaadka haatan ee xukuumadda xildhibaanada taageersan ee isku dayaya in 42 laga dhigo xilka qaadista gudoomiyaha iyo xildhibaanada ka soo horjeeda inuu intan ka sii jiitamo golaha wakiilada Soomaaliland iyo xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxay wada shaqaynayeen 4 sano ee ugu dambeeyay waxaana isla golahan aad arkaysaan uu Siilaanyo ka magacaabay wasiirro ka mid ah xukuumaddiisa oo ay ka mid ahaayeen wasiirkii hore arrimaha gudaha mudane Maxamed Nuur Caraale Duur wasiirka haatan ee maaliyadda mudane Cabdicasiis Maxamed Samaale محمد عبدي لقون كيبل تي في قولها وكيلة Somaliland xildhibaan eedaymo badan baa jiro oo la xidhiidha sida ay soo jeedinayaan xildhibaanada dhinaca kale ee ka soo horjeeda mooshinadii aad soo gudbiseen ee aad xildhibaanada saxiixay aad ka mid ahayd eedaymahaas waxaa ka mid ah in xildhibaanada xukuumaddu dabada ka wado in xildhibaanada guriyihii xukuumadda ku shirayeen in madaxweyne ku-xigeenka aad la soo shirteen inay golihii xukuumaddii doonaysay inay soo farageliso buuqa maanta taagan ukii xukuumaddii maxaad ka leedahay waxa weeyaan horta anigu waxaanu hayn dee golaannu nahay onumina lacag bay qaadan jireen waanu qaadanaa ma odhanno dee waxaan anigu ku dambaamaayo laakiin waxaan u sheegayaa annakoo 4 ku futayna baa fadhiyi jirnay naga badan yihiin maanta arkeen in xildhibaanada caqliga u soo noqday oo sharciyadda u soo noqotay oo ay 750 mooshinka ku keeneen waxa golaha ka sameynayeen waa iyakii nimankii xoogga waaweynaa bay ahaayeen marka waxaan leenahay sharciyadda ku soo noqda golaha kaalaya fadhigayna wanaajiya saynu wanaajin jirnay aniga cali marraxaan iyo waabayo afartayda waa garanaysaan waa ninkii marka fartina lagu taago aadaro asloo bixi jirnay maxaa isbedelay imika waxa isbedelay xaqii baa lagu soo noqday sharciyadii baa lagu soo noqday ku soo noqdo waan leenahay laakiin anagu ku dambaabi mayno xildhibaanaas lacag baa la siin jiray xildhibaanaduna waxa leeyahay waa sharaf bay naga mudan yihiin xildhibaan lacag qaatana kumaanu arag mana siinino manaanu arag in badan baad ka mid ahayd guddida joogtada ee golaha wakiilada xoogayana waad ka ahayd waxaad mudane ii sharaxdaa
marka mooshin la keeno golaha ee guddoomiyaha loo gudbiyo mooshinkaasi halka uu ku dambeeyo halka uu maro iyo guddoomiyuhu xaqa uu leeyahay marka mooshinka la keeno marka mooshinka la keeno xaqa uu leeyahay waxa weeyaan inuu haddii xildhibaanadu way badan yihiin dee uu 55 baa kanoo kala saxay inuu ku dhawaaqo waa laga doodaya midka kale dhow 10 ka soo saxeen sharciyada loo sharci dejinta ayaa loo gudbiyaa marka guddoomiyuhu isagoo imika ku xidhay golaha waa qalad waa inuu sheegay ilaa beritaan fadhi waa inoo furan yahay dood baa dood baa la furayaa saas uu kaalay oo xildhibaanadu ku tagaan laakiin guddoomiyuhu wuxuu noo qaatay siduu xusbi u leeyahay ayuu sharciyadii intuu qaatay buu naga baxay deeta marka waa digaalkay 10 xildhibaan ay raacsanaan inay meeshii dabxir ku xidheenay yiraahdeen waa dagaalamina hadda halka soo gashaan marka taasuna naguma wanaagsana xildhibaan su'aashaydu waxay tahay maadaamo guddoomiyaha mooshinka loo gudbiyey oo aad leedahay 55 baa saxeexay iyo ka 10 ku saxeexeen in sharciga loo gudbiyo may ku qorantay xeeroosaadka in ka 55 saxeexeenna isla markaa uu guddoomiyuhu ka hadlo ka 10 ana markaaba uu gudbiyo sharciga guddida kula hoos baa ku qoran toodii maalintii dhaweed ay ku ridaayeen shir guddoonka ku ridaayeen ay waxaan ku sameeyeen markii waqti loo fooday teeyadogeed aan qaylinayna war halaga doodo war berita hala dhigo war saadam war aynu isku soo noqono waa tiina la diiday kan muxuu kii kaga duway isweydiiyo ku shalay ku dhawaaqay uu nagu xidhay muxuu kan kaga duway isaga weydii marka waxaan leenahay waa sharci in xildhibaanada la qanciyo warnaka 55 ku fadhina waa nagu ceeb narkii baa nagu baqtiyay waa nagu ceeb taas waa ceeb miyaan ahayn guddoomiyahayga waa nuuhan weynii intaasoo suluud baan loo shaqaynay in sana loo galo aad iyo aad baan uga xun xildhibaan almarxam soo yar degba xildhibaan waxaad weyn dhow xildhibaan xasan cawaale caynaan waxa uu ka mid yahay mudanayaasha golaha wakiilada waana guddoomiyaha guddida arrimaha bulshada ee golaha xildhibaanka ayaa waxaan weydiiyey maxay tahay xaaladdan ilaa imika goluhu ku jiro isagoo fadhiga xidhan bismillaahi raxmaani raxiim xaaladdani waxay ka kacday xeer hoosaadkii oo la beddelay xeer hoosaadka waxaa markii hore ku qornaa saddexda guddoomiye ku-xigeen labada guddoomiye ku-xigeen in lagu rido 55 hase ahaatee 2 nin oo keliya oo aan cid kale tarixin ayaa soo jeediyey in lagu beddelo labada guddoomiye ku-xigeen 42 ta goluhu ka kacay ee uu markaasi arrintan keentay waa taas sababtoo ah majoritiga goluhu waxa uu leeyahay sinaan iyo cadaalad shir guddoonka ha lagu sameeyo 42 ha lagu wada rido sidaa daraaddeed qoladan xeer hoosaadkii waxay ku soo dareen oo qaladka keenay labada guddoomiye ku-xigeen 42 lagu rigo guddoomiyahana 55 tabuuqa iyo qaylada iyo sawaxanka keentayna waa taasi waan gartay xildhibaan waxaa jirta sharciyadda golaha marka loo eegay mooshin la keeno in mooshinka loo gudbiyo guddida joogtada waxyaabaha kala duwan guddiyada gaarka loo gudbiyo mooshinkani guddida joogtada ayuu lahaa mise sharciyaqaanku guddoomiyuhu gudbiyey buu lahaa halkuu lahaa mooshinkan aad maanta ku saxeexnaydeen mooshinkan waxaa loo gudbinayey guddida joogtada ah in loo gudbiyo ayay ahayd laakiinse guddoomiyuhu waxa uu yidhi waxaan u gudbinayaa sharciyaqaanka ayaan u gudbinayaa buu yidhi marka in joogtada loo gudbiyo si ay markaasi beritoole u soo celiyaan ayay saxayd marka guddidii joogtada ahayd warqad bay keeneen ay ku sheegayaan inay mooshinkan aqbalsan yihiin taasi miyaanay sharciga baalmarsanayn runtii waxay ahayd markaasi guddidaasi dee xeerkan horena way u saxeexeen in 42 laga wada dhigo qodobkan tobnaad in 42 laga wada dhigo maadaama ay sidaasi ogolaayeen gaar bay isku arkeen waxaanay soo saxeexeen in markaasi 42 lagu celiyo saddexdoodaba aad baad mahadsantahay xildhibaan cabdiqaadir sidaad u aragtaa xaaladda golaha runtii horta xaaladani waxa weeye hadda waa xaaladee waa yara cakiran tahay laakiin wax walba golaha waxa lagu hogaamiyaa waa sharciyad baana lagu maamulayaa golaha sharciyadaasaanuna ku qanacsannahay mar walbana annagu sharciyadaasaanu ku soconaynaa mooshinaa la keenay golaha mooshinadii golaha la keenay markii golaha la keenay shirguddoonku wuxuu yidhi waxaan waafajinayaa sharciyadda waxaan u dhiibayaa la taliyaha sharcigana wixii la maran habaabinayaa loo dhiibaayay markii hore waxa lagu yidhi duuduub
duuduubaan dhaqan u lahayn golahan baa hore looga bartay anigu mar walbana waa ka soo horjeedaa duuduubkanna broblem buu noqday marka waxay ahayd cod uun in lagu kala baxo hawshan ay iska soo dhammaato wax weyne maaha qorina laysuma haysto guddoomiyaha waa guddoomiyahayagii 8 sannadood buu guddoomiye u ahaa sharaf buu mudan yahay ixtiraam buu naga mudan yahay waxa weeye labadaadii guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeenkaagii isku mid noqda oo 42 wada ahaada sida dastuurku sheegayo qodobka 250aad dastuurku wuxuu leeyahay shirguddoonkiinii wada ahaada oo 42kiina ku wada jooga xaaladda dalkuna ha deganaato laakiin idinka ansixiyey soo maaha inay kala bataan dawladda korrintii bay ka baaraysaa walaal waa saxaafad siciidow markaa xildhibaan idinka ansixiyey oo cod aqlabiyada ku ansixiyey in ay sidaa u kala bataan xeeroosaad aad ansixiseen ayaad iminkana ka daba timaadeen markaa taasi miyaan ahayn isla golaha dhexdiisa ku soxo saaxiib wax walba sharciyad bay ku socdaan sidii aan hore kuu sheegay xeer hoosaadka waa la keenay golaha sifa sharcigu ku yimi laakiin laba xubnood oo degdegaya unbaa wadda khalada marsiiyey oo yidhi waxaan loo joogin ba sheegay laakiin golahu ku raacay dhegayso golaha marka la keenana waxa weeye 24 saacadood inaan soo akhriso xaq baan u leeyahay waa lay diiday inaan eegaba xitaa war waxaan ansixinayaan eego biruu iga hor imanaya aniga mudanaan ahay anuuba ay caqabad igu noqonaya aan iska soo akhriyo waa layga diiday mar haddii lagaa diiday wixiina dee wadan sixisay laakiin adu ma ansixin doono waana xaaraan baa mala taaganahay aad baad mahadsantahay xildhibaanada ugu soo waxanka badan baad ka mid ahayd xildhibaanada ka soo horjeeda mooshinada yimid baad ka mid ahayd maxaad ku diidan tahay waxaan ku diidanahay mooshinka maanta saddexda mooshinba ma ahayn mooshin goluu leeyahay saddexda mooshinba waxaa ka yimaadeen madaxtooyada wasiir iyo madaxweyne ku-xigeen baana waday maxaad ku caddaynaysaa waxaan ku caddaynayaa wasiirku markii ugu horraysay isaga ka qirtay in goluu sanka caana ka keeni doono xeeroosaadkeeda lagu muransan yahay ayuu fagaara kaga qirtay shalayna waa la ogaa shirguddoonkii madaxweynaha iyo sidooda wasiir iyo xildhibaana caanaha dhinacaad u fasirata xildhibaan halkaasu ka soo dhaartay caanahaas dhinacaad u fasirata golaha burburin doono caanaha laga keeni doonaa midna waa kuu sheegaya dawladdu waxay ka baadhaysaa xeeroosaadkii kordhintii ay ku kordhisan lahayd doorashooyinka ayay xeeroosaad ka baadhaysaa xeeroosaad golaha wakiiladu kordhintii dawladdu kordhisan lahayd ee sabab noqon lahayd noqon maayo ee dawladda ha soo dhigato kordhinta aqlabiyaddii mudanayaasha golaha wakiilada mooshinnadan keenay maadaama ay mooshinnada keeneen guddoomiyina fadhigii u xidhay maxay xaq u leeyihiin mudanayaasha aqlabiyadda waxay xaq u leeyihiin gudoomiye horta hadduu xiro shirka oo qayla ka dhacso mooshin kastaan kuu sheegay maahay mooshin sharciya uu ahaa mooshin ay dawlad iyo wasiiro iyo madaxweyne dabada ka laakiin xildhibaanadii golaha wakiilada mudane su-aashaydu waxay tahay oo aan doonaya inaan golaha ku koobnaado maadaamay mudanayaashii golaha wakiiladu saxeexeen oonu madaxweyne iyo ku-xigeen iyo wasiirka ku saxeexnayn mooshinka golaha yimid waxaan odhan karnaa mudanayaasha golaha wakiilada dhexdoodii weeyaan mudanayaalbaa keena muxuu xaaraan ku noqday waxaa xaqiiqoo marag ma doontaa guddi joogtada in guriga xirsi lagaga seexay qoraal aan jirin waxaa xaqiiqoo maragma doontaa maxaad ku caddaynaysaa in lagaga seexay dada uu uruurinaya ee nusaa carruurta inuu u qaybiyey maxaad ku caddaynaysaa xildhibaan maxaad ku caddaynaysaa iyaga annaga wax naga sii qaad noo qaaday kuwii la siiyey way aad baad mahadsantahay xildhibaan waxaan su-aashaydan doonayna ku weydiiya waxa weeyaan guddida joogtadii qoraal bay keeneen ay guddoomiyaha ku keeneen inay ku ta'kiidinayaan oo ay ku ogol yihiin in ay mooshinkani uu yahay mid sax guddiga joogtada qoraalka waa guddoomiyaha marka hore isugu yeedhi kara guddiga isla markaana waxay ku shireen xafiiskooda laakiin xafiiska guriga madaxweyne ku-xigeenkana kuma shiraan madaxweyne ku-xigeenkuna isuguma yeedho laakiin iyaguba waxay ku doodayaan in waddani xafiiskiisa lagu shiray isagoo xisbiga isaguba laakiin wax golaha lama nimaadno aad baad mahadsan tahay xildhibaan igu celi waxaan ku mooshinka la sheegayo in golaha la keeno oo dawladda loo gudbiyo iyo iyama horreeya inta joogtada lagu horraysiiyo in golaha lagu soo celiyo laakiin iyagu waxay ku doodeen inay aqlabiyaddii moosinku uu kor u kacday oo aad u badan tahay maadaama ay aqlabiyaddii kor badantoo aan la ansixin maalintii horeba guddida joogtada lagu celin qodobada wax laga beddelayay in imika sideedii loo mariyo waxaan ka hadlaya marka mooshin la soo jeediyo xeeroosaadka ku saabsan marka golaha la keeno waxaa loo gudbiyaa guddiga joogtada ama soo ayida ama soo diida laakiin waxa weeye iyadoo aan goliba la keenin oo aan guddiga joogtadaba loo gudbin sida maanta uu guddoomiye laha loo gudbiyo aan loo gudbin ayay xaggoodii ka timi oo waxa weeye marka maanta soo mooshinka may keenin soo maanta in loo gudbiyo may hayn soo deedna inay ka soo shiraan oo deedna goloweynaha ka soo celiyaan may hayn isla maanta ayay ku leeyihiin guddigii joogtada baa keentay
manay keenida ku joogto goorbay u gudubtay bal adaa ku weydiiyey goorbuu mooshinkan guddi joogtay intuu u gudbay haddana ka soo noqday waxay leeyihiin maalinteediiba waana naga diiday in sidan oo kale aana nagu ansixiyey in mooshinka markii la keenay mooshinka toos baa loo meelmariyo cidna looma gudbin joogtaa keentay maanta hore guddiga joogtaa soo jeedisay oo wada soo saxeexday saasoo cod loo maantana way soo saxeexday dee laakiin mooshinka bay keenay iyagu maanta mooshinka waxaa keenay xildhibaano kale aad baad mahadsantahay xildhibaan cali xasan maxamed cali mareexaan waxaad ka mid ahayd mudanayaashii golaha wakiilada ee muddooyinkii ugu dambeeyey baa aqlabiyadda goluhu dhinaca isku raacda ee xeerarka iyo waxyaabaha kale ansixinayaan inta badan dhinaca kale ka ahaa siduu xildhibaan nacnac sheegayna ka mid ahayd xildhibaanadii diiday xeeroosaadka golihii buuq baa ka dhashay xeeroosaadkii ku saabsan muxuu ku salaysan yahay waxa qura ku salaysan yahay waxaa weeye guddoomiyuhu wuxuu yidhi anigana 55 baa lagu ridayaa labadii guddoomiye ku-xigeen labada garab ka fadhiyey saaxiibadii ahaa ee 8 sannadood la soo shaqaynayana wuxuu yidhi 42 ku rida dabadeedna qodobkaasuu guddoomiyuhu saxeexay oo xeeroosaadka cusub ku jira goluhu wuxuu u arkay oo majoritigan dambe ee aadka u ballaadhan soo celiyey waxaa weeye goluhu wuxuu doonayaa cadaalad wax kale ma rabo cid la ridayo iyo cid la dallacsiinayaa midna ma jirto waxa wax lala yaaba noqotay aniguna 55 baan ku dhacayaa labadeedii ku-xigeenna waxay noqonayaan 42 laakiin golihii baa u codeeyeynaysaa golaha u codeeyey weliba lagama doodin malaa 10 minit baa loogu codeeyey taa hore waxaanu doonaynaa waxaa weeye marka uu guddoomiyo aqlabiyadda haystana dee inaanu procedureka jirin oo aanu 10 minit baa loogu codaynaya marka aqlabiyadda laga leeyahayna intuu xidho aanu albaabka ka bixin golaha dhiqi mayso shalayto guurtii baa loo yeedhay maantana siiya baa la yidhi waanu aqballay waa arkaysona 60 baanu ku fadhinay isku wadacoda maantana wuxuu yidhi guddoomiye waa xidhan yahay maantana 60kii baanu ku fadhinay inta golaha la warwareejin karaa waa maalin iyo laba awoodda golaha ugu weynina waa majoritiga golaha guddoomiyuhuna hoggaamin buu leeyahay marka hadday ku wanaagsan tahayna dee ha ku wanaagsanaato haddii aanay ku wanaagsanayna ha ahaato laakiin awooddu waa inaad golaha ku hoggaamisaa goluhu wuxuu doonayo tusaalaan ku siinaya maalintii xeeroosaadkaa hore aad ka sheekaynayso loo codaynayay guddoomiyuhu wuxuu yidhi soo jeedimo ayaa golaha ka dhashay soo jeedimadaas waxay ahayd in iminka loo codeeyo duuduub loogu codeeyo aan la soo akhriyin maca joogtada maca wixiiba mar baa naloo wada dhiibay tii buu aqbalay dabeedna cod buu geliyey dabeedna waa nalaga batay annagu maanta soo jeedimaanu hayno wanigii macaa wada taagtaagin waanaanu ka badnayn maalinta hore intay ahaayeenoo 54 baanu ku soo saxeexnay waa la xamilaa waxa la xamilaa ra'yiga kula socda iyo ra'yiga kaa soo hor jeedba waa la xamilaa haddaad leadership iyo dee hoggaan ka hadlayso maalinta codku kuu badan yahay haddaad sacabka tunto maalintu kaa beedhsan yahay in albaabka xidho kadinka ka booddo goluhu saa dee ku dhaqmi maayo waxaad warwareejin kartaana waa maalin ama waa laba xildhibaanada iminka waxaan maqlayay xukuumad baa soo faragelisay waa afxumo 60 xildhibaane 55 xildhibaane waxa soo saxay halkaa fadhiyey iyo kuwa kale aan soo saxayna taageersanaa kuma odhanaya xildhibaan ma kuma odhanaya waa qof suuqa ka yimi ma wasiir baa nala codaynayay aqlabiyadda ha la aqbalo sharcigana ha la aqbalo maalintay ku sallaxan tahayna dee sacabka ha garaacin maalintay kugu jiiftana ha cararin golaha halka uu aqlabiyaddiisu marayuun baana sharciga golihii imika u xidhan yahay xildhibaanadiina way sii joogaan adiguna aad ka mid tahay kursigaagina waad ku fadhidaa ma sharci darraad iminka ku sii joogtaan mise sharci maadaama golihii guddoomiye xidhay horta guddoomiyuhu ugu xidhay golihii laakiin annagu waxaan u arkaynay inay afduub ahayd kamaanaan daba shirinoo dee annagaa iska fadhinaa sababtaan u kici weynayna qodob qurun bahe inaannu tusno inuu maalintii horena 10 minit noo diiday inaan farti taagno ee majoritiga haystay maantana intuu xidhay albaabka ka booday inuu khaldamay inaannu tusnaan doonin waxaannu kaloo doonayn inaannu tusno inaannu aqlabiyad nahay guddoomiye ku-xigeenada way fadhiyeen 50 iyo dheeraad xildhibaanna way fadhiyeen macna samayn mayso guddoomiye quroo ka baxay inaanay macna u samaynayn baanu tusin laakiin haddana tallaabo maanaan qaadin
aad baad mahadsantahay aad baad mahadsantahay xildhibaan bashiir saad u aragtaa golaha maanta shaqo fiican baa ka dhacday oo aad iyo aad u wanaagsan hawl maalmeedkii buu ahaa si fiican inkastoo guddoomiyaha 3 mooshin abidkeed may dhicin 3 mooshin oo guddoomiyaha loo keeno haddana guddoomiyuhu dulqaad buu muujiyo oo wuu akhriyey weliba kii afraad ee annagu aanu keeni lahayna madaxweynaha ku saabsanaa ayaa madaxweynaha see ku saabsanaa dee in isagana madaxweynahana arrinkiisa la eego oo sidee loo eego ha u yaalla mooshinkaasi sidee loo eegay madaxweynaha muxuu ku saabsanyay mooshinkiisu saacadii ku sheegay wuxuu jebiyey dastuurro badan iyo arrimo caafimaad oo dee guddi caafimaad oo madax bannaan in madaxweynaha loo saaro oo maxay aad ku dalbanaysaan dee la baadho dee madaxweynaha caafimaadkiisa ilan dalkii cid kalea ka talinaysa hay sababtan la soo dhaaranayo ee isagoo fadhiya lanoo soo dhaaranayo ee ummaddii loo soo dhaaranayo laga gabayo marka moosinku ma caafimaad buu ku saabsan yahay mise moosinku wuxuu ku saabsan yahay xilka qaadis maya horta bal caafimaad marka guddidu soo xaqiijisa caafimaadkiisa ayaa taasina iman doonta aad baad mahadsan